gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo booqasho ku joogay dalka Norway ayaa magaalada Trondheim ku taala bartamaha dalka Norway kulan kula qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan iyo dadyow kale oo Soomaaliyeed iyagu ka kala yimi magaalooyinka ku heerarsan mudane Jawaari oo booqashadiisa dalka Norway uu ku heliyay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudane Mahad Cabdalla Caawad ayaa ugu horeyn ka tacsiyay geeridii Allah u naxariistay ku timi gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya marxuum Sheekh Aadan Madeero lagu dilay magaalada Muqdisho waxaanu intaa kadib gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uga warramay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Trondheim oo in ka badan 20 sanadood uu kula noolaa magaaladan sababaha la xiriira safarkiisa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدن يا المواطنين تشرفت له وقدرت قارك يقوله أمان وسلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا هوري فران وحان ربا دمان إن هلكن uga tabiyo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo iyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed in Ilaahay sabir iyo iimaan uu naga siiyo gudoomiyihii guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka mudane Sheekh Madeer gacan ka gardaran u dishay isagoo waajibkiisa jimco tukaday masaajidka soo baxaya gacan ka gardaran ay dishay ayaan uga tacsiinayna waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaa dhammaan xildhibaanada inuu sabarka siiyo iyo eheladiisa iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaanba sabar Ilaahay ha ka siiyo isagana waxaan Allah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa in qabrigiisa Ilaahay uu ifiyo uu waasiyo una firaasho rawdatul janna jannatul naciim Ilaahay ku awaal saad aad ka arkaysaan ba hadda dilalkay waxaa socdaan waxa ay markhaati iyo marag mudoonto u tahay in golaha shacabka uu waajibaadkiisii shacbiga u igmaday si buuxda u gudan golaha shacbiga waxaa weeyaan uu dhaxaadkii dhisidda dowladda golaha shacbiga waa codkii shacbiga waa golaha shacbiga waxaa loo igmaday in dalkaasi uu ka bixiyo wareerka iyo ciriiriga iyo qalalaaska uu ku jiray laga saaro lana gaarsiiyo heer dimuqraadiyadeed oo xor loo yahay adduunkooda iyo aakhiradooda ay ku adeegan karaan in laga dhigo ayaa halganka u yahay nolol igmaday taasaan ku jirnaa runtii xildhibaanada golaha shacabkana anigu waxaan u arkaa inay yihiin kulligooda naftood hurayaal waayo maalinna shaqada nagama baaqan umana baaqan doonto wixii shacbigaas aan ugu dhaaranay inaan gaarsiino waa inugu ballan in marna aan hakinin oo aan wadno ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala gacan kastoo naga gardaran oo ama shacbigaasi u diidan nabad iyo dimuqraadiyad iyo diintooda iyo adduunyadooda inay dhaqdaan ninkii u diidan ilaahay subxaanahu wa tacaala ciisadiisa ka magan garleeyay allaha naga qabto runtii markaan maanta halkan imidii hadalladii aan degaystay iyo labadan beri aan ku wareegayay Trondheim hadalkan waa iga dhumay waxa aan arkay dhalinyaro iyo dadkii odayaashii hore cuslaaday meesha fadhiya waan soo halganay duudu xoogaa bogsoolay haddana waa iga dhumay waxa ay ballan baan qaaday sanadkii dhaway maraan Oslo imid oo aan gudoomiyaasha oo guddiga oo golaha shacabka ay ila socdeen qaar ka mid ah igu yimaadeen Oslo markii aan meesha booqasho ku joogay ballan waxaan qaaday sanadkii xiga oo ah sanadkan inaan Oslo istaagin oo toos u imaado Trondheim ballantaas ay iga hoofinteeda inaan halkeedii ku imid maanta waa idinkula xabdayo waajibkaygaan ka hoos maraya haddaanan xoogaa yar aan idin dulmarin laba arrimood arrinta koowaad ay tahay waxa uu ku saabsanaa socdaalkaygan aan ku imid Trondheim iyo Norway aan soo booqday socdaalka oo aan ku imid Trondheim waxay ahayd sanad guuradii oo boqorkii koowaad Olaaf aan taqaanaan oo mideeyay dalkan Norway oo muddo laga joogo qurun laga joogo mideeyay xuskiisii ayuu ahaa hase yeeshee waxaa sanadkan maadaama dastuurka Norway uu 200 jirsaday
may 814 oo ahaa haddana wuxuu gaaray 200 sano marka tiim baa lagu soo daray oo ahayd arrinta ahmiyadda dimuqraadiyadda iyadoo la isbarbardhigay dimuqraadiyad oo hirgashay sida Norway aad ku nooshihiin oo maanta nacfigeeda iyo dheefteeda aad aragteen iyo dimuqraadiyad la soo kobcayso hadda dhismaheeda lagu jiro la dhisayo oo ay ka mid tahay Soomaaliya labada la isbarbardhigay anigu waxaan ka hadlayay xaaladda Soomaaliyeed iyo halka uu maray dhismaha dimuqraadiyiinta arrintaas ay ahayd ujeedada ugu weyn waxaa jirtay gabar Soomaaliyeed oo markaa macallin aad u tahay dardaaran soo jeedinayso lahayd macallin waxaad naga ballan qaaday mar aad nala hadashay in aad dalkii noo dhisaysid annagana waxaad nagula dardaarantay inaan wax baranno khayrna waa ku rajaynaa ilaahay khayr ha ku siiyo arrintaas si kooban bal maxaad gabadhaas yar aad u qabateen muddo 2 sanadood kadib gabadha iyada aad baan ugu farxay oo aan dhalinyarada markii saas oo kale oo ay hadalkaas uga hadlaan aad buu noo taabtaa waa genuine weyn waxyaabaha ay codsanayso waxay rabtaa meel ay iyada ka mid tahay leedahay ay rabtaa inay hesho gabadhaas waxaa lamid ah dhalinyaro badan oo saas oo kale wiilay gabdhaba leh waa ku jirnaa dadaalka isaga ayaga ballantooda way fuliyeen hadda waxaan arkayay dhalinyaro badan oo macallin ahaa hadda mid dhakhtar noqday mid kale oo injineernimo raadsanay mid kale oo yani waa badnaan gabdho badan oo hadda aan meesha uga tagay dhameeyay yani daraasadii jaamacadda si fiican uga baxay way dhiirigelinaysaa in maarta shaqada aan ka qabanayno dalka inaan laba laabno si dhalinyaradaas ay ula wareegaan nogala wareegaan dalka waa ku tala jirnaa ma ka bixin ballanta ayada aanu ka qaadnay ayaga dhankooda waa fuliyeen qaar kalena waa fulintii bay ku jiraan waxbarashadii ay ga ballan qaadeen way wadaan anigana dhankayga iyo jaalayaashayda baarlamaanka igula jiray xukuumadda iyo madaxweynahaba ka gaabin mayno in aan dalkaasi aan u nabadayno haddii la yiraahdo at least dimuqraadiyad lagu noolaan karo oo adduunyadoodan ay ku dhaqan karaan آخرون يقول ديار قروان عند الكاس والنقضة. حسن سعيد حسن راستا تلفزيون كقرن كجمهورية فيدرالكا سوماليا SNTV مقالة ترونهم دلك نرويج.